Hello you guys, fadlan haddii aad ku cusub tihiin channelkan subscribe noo saara gambaleelkana furta si halkan idinkugu soo dhacaan xogaha aan idin soo gudbinayo. Maalmahan sheekooyin badan ayaan idin soo duubay, waliba qaarkood dadka waxay leeyihiin Nasriine cabsi badan aan ugu abuuraysaa. Sheekadii ugu dambeysay oo kale aan uga hadlaynay haweeneydii ninkeeda ka booleysatay ee shayaadiinta isku soo dejisay, dad badan ayaa ila soo xiriiray oo dhahay sheekadaas cabsi badan ayna gelisay. qaarkood waxay leeyihiin sir naga qarsooneed waa hadda sir aan noo sheegtay leeyihiin. marka sirta banaanka la soo dhigaa. Soomaalida waa dad oral society ah, waa bulsho hadasha, sheekaba sheekay keentay alla marka la sheekeysanayo waxa laga yaabaa sheeko anigoo idin sheegay haddana inay sheeko kale u soo dhacdo oo sheekooyinkii ay noqdaan dhowr sheeko inay noqdaan laga yaabaa. waxaa laga yaabaa dad kaleeto oo badan markay arkaan sheekooyinka la soo duubay oo halkan la soo gelinayo inay dhahaan Nasriine sheeka ku heena sheeko ay soo ag fadhiistaan iga qiseeyaan. qaarkood ma rabaan noo shaashad inay ka soo muuqdaan wajigooda la arko, laakiin waxay leeyihiin message-keena fariinteena adaa ku dhiibeen dadka noo sii gaarsiinaysa. marka sheekooyin xiiso badan idin haya idinka xataa haddii ay haysiin sheekooyin as leedihiin in laga qiseeyo qurux badan yihiin waa ila wadaagi kartaa, sababtoo ah sheekooyinkan idin soo gudbinayo waxay faa'iido u leeyihiin. koow horta dhibaato jirto ayay waxay u noqonayaan ka hortag. marka labaadna waxaa laga yaabaa in sheekada aad waayo aragnimo ka dhaxasho oo adigana beri aad dadka uga sii sheekeyso, sababtoo sheekooyinka gabayada heesaha iyo suugaanta waxay qayb ka yihiin waxyaabaha bulshada wax looga gudbiyo oo laga yaabaa in bulshadu ay noqoto kuwa isku sii gudbiyo sheekooyinka. sababtoo waayadii hore inteenan imaanin ee warbaahinta iyo social mediaha iyo YouTube-kan iyo Facebook-kan maanta oo dhan iska dhex socotiin, dadku waxay isugu gudbin jireen gabayada wax la isugu gudbin jiray. xataa waxaa jiri jiray sheekooyin la qoray Juuxa Caraweelo, sheekooyin badan dhagdheer, sheekooyin oo waxay iska ahaayeen qaarkood khiyaali ah, qaarkoodna wax dhaca lagu saleyn jiray. marka sheekooyinkan yaan la dhaylsanin, yaan la fududeysanin, waa masajada ugu xooga badan oo ugu adag oo wixii sheeko kugu soo gaaro wax si sahal ah lagu hilmaami kara maahan. marka you guys haddii aad channelkan ku cusub tahay fadlan subscribe noo saar gambaleelkana furo, like share comment waa ku qaban kartaa, sadaqa lagaaga baahan yahay kaas. intaas sameey. sheekadan waxay ku saabsan tahay quruxda iyo dabeecadda alis barbar dhigaya. haddii qof qurux badan uusan dabeecad lahayn dhibaato waa. haddii qof dabeecad leh uu haddana qurux badnayn xoogaa waxaa leeyahay xoogaa amaaba iska qaadataa, sababtoo ah quruxda iyo dabeecadda alis barbar dhigaya. taariikh la yaab leh ahayd, weliba waxay ahayd qiso keentay in laba qof oo lamaano ah oo nolosha rabay inay ku midoobaan ee ku kala tagaan. marka sheekadan waxaa la dhahaa quruxdu dabeecad ma noqoto, laakiin dabeecadda waa laga yaabaa inay qurux noqoto. qisadana haddii lagaaga sheekeeyo waxaan ka baqayaa dumar badan inay iyagana wax badan ku fahmaan, rag badanna ay ka digtoonaadaan. sheekadaan idin guda gelayaa. sheekadan waa taan idin sheegay ciwaankeeda oo la dhaho quruxdu dabeecad ma noqoto. nin baa ku waayay jaceylkiisa, gabar baa jaceylkeeda ku weysay, hooyo baa wiilkeeda u carootay, wiil baa hooyadiisa hadal ay u sheegtay dirtiisa saaxiibtiisa ku kala tageen. marka waa ujeedaa waa disaster, musiibo caadi ah meesha ka dhacday. sheekada waa idin guda gelayaa. wiil iyo gabaraa saaxiibo ahaayeen, weliba waxay saaxiibo ahaayeen awatafaareedi maa lahaa waqti hore adi muddo ay wada socdeen. laba qof oo lamaane ah sheekeysanayaan, saaxiibo ah, isjecel, marmarka qaar magaalada aadaan iska soo baashaalayaan, mararka qaar xaafadooda iska joogaan. adiga laba qof oo isjecel oo saaxiibo aad isugu jecel. marka annaga Soomaaliya nahay, dhaqanaa leenahay, caadaa leenahay, dadka naga waaweyn waa xishmeynaa, kursiga uga kacnaa, fadhiga uga kacnaa. haddii qofka weyn adiga xataa iska dhaaf qof weyn oo age ah iska daa, qof xataa adiga 2 sano 3 sano 4 sano ka weyn adoo meel fadhiisa doo kusoo kor istaago, respect yaa muujinaya, xishmada muujinaya, kursiga uu kacaysa asaga ku fadhiisanaya. marka waxyaabahaas dhan sheekadan way ku dhex jiraan. wiilkan iyo gabadha saaxiibada ahaa
mudday saaxiibo ahaayeen mudday wada socdeen way isjeclaayeen lamaano isku fiican ahaayeen inay aqal galaan isguursadaan oo nolosha ay ku midoobaan oo xaas iyo weliba saygeeda nin iyo naagtiisa ay noqdaan ee riyadooda ahayd wiilkii gabadhi sidaas u ahaayeen labada famil telephone la isugu dhiibi jiray hooyo igu dhiib waa la salaama hooyada igu dhiib waa la salaama ama aabaha igu dhiib somehow qoyskii wixii saas isku barteen labada qof lamaanaha markay saaxiibo yihiin oo aad isugu dhow yihiinna waxa laga yaabaa wiilku inuu guriga imaado gabadhana inay guriga wiil ka tagto reerihii isku arkaan dad isku og yahay inay noqdaan mararka qaar way dhacdaa mararka qaar waxaa dhacdo in labada famil telephone iska bartaan oo aan la isku ogeyn marka wiilkan iyo gabadhan saaxiibay ahaayeen muddo ay wada socdeen jaceyl ka wada dhaxeeyay laakiin familka wiilka aabihiis iyo gabadha iyo telephone iska ka saayeen laakiin hooyada iyo gabadha ismaanan aqoonin marka wiilka wuxuu dhahaa baayo miyaha hooya imaatay safar ka imaatay soo wacay gacalsidiisa marka soo wuxuu dhahaa baayo miyaha hooya imaatay safar ka imaatay meesha la joogana waa qurbo dibadda la jooga Soomaali maahan safar ka imaatay magaalo kale ka imaatay muddana waa kaaga sheekeen jiray in hooyo naga maqan tahay marka waxaan rabaa uu dhahay ina hooyo way noo imaatay aw imaatid asbartiin asheekistiin waa asaragtiin gabadhii in hadii la hooyo imaatay waa hooyada aan biological ka ahayn ama hooyada aan sharciga ahayn laakiin maadaama wiilkeeda jecel yihiin hooya Allah Soomaan waa xushmada iyo karaamada loo hayo bas gabadhu waxay hooyo ma imaataa okay hadda imaana soo baxa gabadhii waa soo qalab qaadatay oo soo dhargashatay oo soo baxday hooyadii oo sheeg hooyo gabadha ka sheekeynaa ee quruxda badneed sawirkeeda ku tusay imaanayso ina isbartiina raba hooyo waa og tahay oo sodoh noqon rabto oo sodoh sugta ah hooyo sodoh sugta ah way dadaaleysaa hooyadii waa baxday waa carartay guri kala habeen wixii kala hagaaji meesha qulba la joogo qof shaqo ku qabanaa malaa adiga le waay adiga la guriga hagaaji adiga la cuntada kari adiga la suuqaad xamara dheesid gabar ciidan ay joogtay maahan hooyadii waa baxday baskeeda raacday magaalada aaday alist waxyaabo guriga ugu babaahnaa iyo waxa ay jirtay si uu soo gado gabadha u sameeyso qada sharaf yar oo qurux badan bas hooyadii way baxday baskeeda raacday magaalada aaday soo laabashada dambe oo soo laabanayo oo guriga hooyada ku soo laabanayso bus station ay soo istaagtay gabadhii bus station ka soo istaagtay gabadhii waatana bus station ka soo istaagtay hooyadina bus station ka soo istaagtay lama yaqaano aqoon darada dhibkaas ay leedahay bas baskii ay imaaday bask markoo imaaday gabadhii iyo hooyadii way isla socdaan moogtaa ismana garanayaan bask markoo soo istaagay gabadhii ku hormartay in gabar iska dhalinyaro iska fudud hooyadina qof iska xoogaa hooyo iska age ah waay gabadhii baska soo fuushay baska markay soo fuushay way fadhiisatay markay baska fadhiisatay booskeeda heysata Soomaa hooyadii soo kortay baski kuraaska la ka banaan laakiin kuraasta way ka dambaysaa gadaal iyo meelahaas ay sii jiraan kuraasta hor baska maahan hooyadii soo gashay waxay dhahday eedoomiyaha kursigan ma ii banaan kartaa adoo raaliya alaab culusna waa iska wataa martii waxba guri igu sugays in ciyo degdegan waa rabaa qof weyn waa ahay kursiga dambe tag kan aan ii bedel gabadhu waxay dhahday may kursigaagaas iska tag ma ka kacay meeshan way ku adkaysaa adiga ku adkaas maqli jirto hooyadu waa lagu adkeeyay maxaa la ma ka kacay meeshan kursigaaga dambe iska tag alle hooyadii hooyada markaas la maxay sameynaysaa bas waay bas Soomaalida lagu murmaayo lahay u oday fadhiga si qofka weyn waa ugu ka ha ku adkaan ma jirto meeshaas yama soo galay baska journalkaaga akhrisanay ama teleefankaaga la isla hadlayso malaha hooyadu waxay sameysay garan weysay waxay doorbiday inay kursigeeda iska gudubto ee gadaasheeda iska fadhiso saaxiibta maclimada iyadana kursigeeda iska ganagaato waa la socdo basku wuxuu socdaba wuxuu tagay bus stop meeshii basku istaagi lahaa ku ekaa waa laga degay bas kale la soo raacay baski kale la soo raacay haddana gabadhii ku hormartay kursigay kaga hormartay hooyadii iyada markasto waa iska waalidey waa iska luga gaabanto waa iska socod gaabantaan ka wada way kaarta markii sark oo ma ala haddana wali dab socday dhahday haay dhahday okay haday waa ii soo diiday hadda kan ma ii banaan kartaa maamulo aad u maadsan waa fidisana meel ka degdegaa may dhahday horta kaale maxay ka daba dhigaa Allah kursiga baska ma lacagtiisa libinayso maxay ka daba dhigay hooyadii abin dhax loo shitaba hooyadii waxay dhahday
haddaa saan tahay kolley adduunyaa ku sugaysee gabadheeda waa mahadsantaha la noo macalimadan habartii maamada baski ay ka gudubto kursigeeda kale iska fadhiisatay kadib wixii la socday baskiyaa meesha bas stopka tagay oo istaagay waa la kala degay gaari kale qaadatay gabadha hooyadin gaari kale gurigiyaa la tagay lisma ogo bes macalimidiisa u imaatay hadalisi waa lasoo dhaweeyey waa laisku farxay qolka fadhigaa la geeyey meesha biyo wax ugu diyaariyay lasii geeyey hooyadan waa imaatay ilaan hooy marti u fadhis waaye gabadhaada oo wiilkaaga aroos rabaa imaanayso farxad a ku jirto hooyadin wax karkarisa gashay jikada iska gashay jikada markaa iska gashay wiilkia markuu soo baxay wuxuu dhahay hooyo miyaha gabadhii waa imaatay inaan ku baraan rabaa maxaa la dhahayay inaa sheekeysatiin ala rabaa bes hooyada markaa sheekada meeshaas maraysay okay dhahday macalimadana loo imaaday iyadoo guriga ku jirto oo qolka ku jirto wuxuu dhahay indhihii isku dhaceen gabadhii baa la fiiriyey ayadana waa fiirisay afkiyaa juuqda gabay cid hadashaab la waayay bes hooyadii waa naxday gabadhiina waa naxday inay dadkan laba bas ee isku soo arkeen oo soo murmeen gabadhiina waa naxday hooyadiina waa naxday markaas wuxuu dhahay wiilka washo what's going on aa ka dhacday maxaa meeshaan ka socdo bes markaasaa waxay dhahda hooyadii hooyo gabadhan waa gabadha a guursan rabo oo jaceylkeyga ah marka barasho wanaagsan ee hooyada ku dhahday markaasas ku dhahday hooyada waxay dhahday oo ma gabadhaan rabtaa inaad guursatid oo la maxaa dhaca hooyo gabadhaan waa guursan rabaa gabadhaan aniga iyada waxaan dhex martay saas bas kursiga way ku ixtiraami weysay waxba kama dhigan bas b markaa soo raacnayna waxay dhahday xoogaa si aan aniga jeclaysan ila hadashay marka qurux dabeecad ma goysay gabadhan wiilkeygiyo haddii aad duca iga rabto hooyadaa ahay 9 bilood kusoo waday gabadhan aniga kuguma talin lahayn inaad guursatid wiilkiina wuxuu dhahay hooyaday maadaama asas u gashay oo saas ee dhacday arinta asas ahayd waxaan kaa codsan lahaa dhahay inaa amarkeeda qaadano oo waxyaabaha ayada ay sheegayso aad dhaqangelino adigana wuxuu dhahay aad iyo aad u maadsan tahay marka wuxuu dhahay waalidkeega waxaysan raali ka ahayn aniga ma samayn kari jaceylkeena iyo xiriirkeena wuxuu u baabaa waxa ixtiraambaysa waalidkeega haddii aad waalidnimada xataa ku ixtiraami lahayd oo ogaan lahayd waxaa laga yaabaa inaad dad kale ixtiraam wiilkii gabadhii sidaasay ku kala go-een marka ma kula tahay in jaceylkaas jaceyl aad u xidid adag uu ahaa jawaabta adiga commentiga kusoo qori doono guud ahaan waa inaga intaas sheekada maanta you guys khayr badan ayaan idiin rajaynayaa fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkan subscribe saar gambaleelkana furo mac salaama